iyo shirkii ka horeeyay kalfadhigii ka horeeyay waqtigu furmay isbedela socdo marka waxaan idinka codsanaa in arrinkaasi lagu buraarugo teedii kale iga raali noqda xildhibaano badan oo halkaan fadhiya waxaan ka wada hadalnay waqtiga haddii la yiraahdo usbuucii waxaan shaqaynaynaa 3 maalin taas macnaheedu waxa waaye maalintii hal saacaan shaqaynay haddii 12 uu furmo taasoo macnaheedu ay tahay 4 week ama 4 isbuuc markaan shaqayno oo u dhiganta bil waxaan shaqaynay ogaada 12 saacadood kaliya haddii 12 saacadood oo hal maalin ah bishii waxay u dhigmaysaa hal maalin inaan shaqaynay haddii bishii hal maalin aan shaqayno haddaan dhahno sanadkii 12 bilood waay fasaxna qaadamayna jamaaca ma rabno waa shaqaynaynaa sanadka oo dhan isku filis waxay noqonaysaa 12 maalmood kaliya inaan shaqaynay haddii aan dhahno waxaa noo dhiman 2 sano iyo bar aan dhahno waana 2 sano iyo barka oo dhan waa la shaqaynayaa waxay noqonaysaa 12 maalmood oo lagu daray 12 maalmood oo lagu daray 6 maalmood 30 maalmood oo min 12 saac kaliya noo hartay taas macnaheedu waxa waaye haddii aan dhahno sanadka ugu dambeeyay doorashooyin la geli doona campaign waxba la aadi doona taas macnaheedu waxa waaye 12 oo 6 lagu daray 18 maalmood aan noo hartay min 12 saacadood ah markaan fiiriyay qorshe hawleedka gudiyada runtii gudiyada shaqo fiican ay qabteen waa aaminsanahay inay dhameystiri doonaan shuruuc shaqooyinka hadda u yaala markaa fiirisid marka qorshe hawleedka gudiyada hadda gacanta ay ku hayaan markaas kadibna aa u qiibisid saacadaha annaga nologu aan ku shaqayna la isu qiibiyo waxay noqonaysaa wax muuqanaya ma noqonayso marka saaxiibadeyda sharafta leh xildhibaanada sharafta leh waxaan codsanayaa in arrinka saacadda aan aad u ilaalino waana aaminsanahay haddaba isbedelaa socda inaan nagu dhicin annagoo fasaxyada haddii laga gooyba 10 maalmood aan hartaa la dhihi karaa xitaa aniga kulley bisaan calculationka u sameeyo waay statistically saan u arkay marka waxaan codsanahay aad inaan u dhowrno waqtiga oo annaga aan gudano waajibaadkii dastuuriga annagana saarnaa waxay la tahay haddaan u soo noqdo aad u mahadsantiin haddaad ii ogolaateen inaan qodobkaas ku daro oo ajandaha aan ka mid ahayn runtii waan idinkaga mahadcelinayaa qodobka kale waxaa waaye sharcigii waa laidin qaybiyey waa la soo akhriyo guddiga qaabilsan guddiga ganacsiga ee baarlamaanka noo qaabilsan asagana ka soo shaqeeyo kulanka kale oo aan kulmi doono ayaa si fiican looga doodi doonaa insha allahu tacaala guddiga lagu wareejiyo haddii aad ogolaataan shirka annaga uu noo xiran yahay